assalaamu calaykum walaal. Waa walaalkaa Soomaaliyeed oo jooga Germany. Ma rabo in aan magaceygii aan sheego. Waxaan wataa 2 su'aalood. Tan koowaad, waxaan ahay nin dhalinyaro ah, waxaana rabaa inaan raganimada iska saaro ama dareenka raganimo. Kama wado inaan dumar iska dhigo, balse waxaan rabaa taa beddelkeeda xooggayga iyo waqtigayga inaan cibaado Alle uga faa'iidaysto. Tan labaadse, ma bannaan tahay in dareenka la iska tirtiro ama la isdhaafiyo? Salaan sare walaal. Qur'aanka Kariimka waxa uu leeyahay qofka in jirkiisu sida uu Alle ku abuuray inuu wax ka beddelo waa dhaqanka shaydaanka. Mana bannaana qofka in jirkiisii uu dooriyo sida ku xusan suuradda Nisaa. Saxaabigii Cabdullaahi ibnu Cumar waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aad u jecel cibaadada. Maalin ayuu Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee intuu u yimid ayuu ku dhahay, Rasuulkii Allow, waxaan doonayaa inaan in badan cibaadaysto, maalin kastana waan soomayaa, habeenkii oo dhanna salaatuleyl ayaan u taagnaanayaa. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee marka uu hadalkani ka maqlay Cabdullaahi ibnu Cumar waxa uu ku dhahay, sidaa ma samayn kartid. Maalin kastana ha soomin, maalmaha qaar wax cun, maalmaha qaarna soonka wado. Habeenkiina habeenada qaar iska seexo oo salaatuleyl ha tukanin. Camaladuna waxaa ugu fiican uguna qayrka badan kuwa la joogteeyo haba yaraadaane. Qofka muslimka ahna waa uu jeclaan karaa in noloshiisii oo dhan cibaado iyo in Alle gooni uu u noqdo, kana badbaado shahwaadka nooc walba oo ay noqoto. Balse shahwooyinka qofka ku xiran ayaaba imtixaan lagu kala fiirinayo haddii uu raacayo qofka ama in kale. Si kooban, arrintani jirka bani'aadamka in isbeddel lagu sameeyo sida uu Alle ku abuuray ma aha mid bannaan.